magacaygu waa maxamuud xuseen cige waa gudoomiyaha jaamacadda eelo halkan waxaan inoo jooga madaxweyne ku-xigeenka jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Cabdiraxmaan Cabdullaahi Saylici iyo golaha xubnaha kale golaha wasiirada golaha wakiilada barasaabka gobolka maayarka magaalada Boorama iyo marti sharafta kale waxaan idinku soo dhaweynaynaa site-kii jaamacadda eelo oo aad arkaysaan shaqada ka socota hawsha ugu horeysa maanta socota aad arkaysaan waa hoolkii weynaa ama auditoriumkii jaamacaddu lahayd oo sidaan idin sheegay xajmigiisu dhan yahay 800 mitir oo square waa 20 mitir iyo 40 mitir oo dheer oo loogu talagalay inuu qaado ugu yaraan 2500 oo qof marka wuxuu noqon doonaa hoolalka ugu waaweyn ee maanta wadanka Soomaaliland aynu ku hayno mid kamid ah insha Allah xafladda qalinjibintan wixii kale ee warbixin aan ku bixin doonaa laakiin madaxweyne ku xigeen waxaan fursad uga faa'iideysanaynaa inaan aadna ugu faraxsanahay inaad noogu timaado site-kana hawsha ka socoto waxaanu rajaynaynaa insha Allah ilaa iyo sanadka dambe bisha 6aad in hoolkan iyo deerkii wareegsanaa oo dhan ay dhamaadaan insha Allahna xafladda qalinjibinta aanu waxaan soo halkan sharaf ah inaan ku soo dhaweyno madaxweyne ku-xigeenka jamhuuriyadda Soomaaliland barasaabkii mas'uuliyiinta jaamacadda eelo iyo wasiirka wasaaradda beeraha iyo mas'uuliyiinta kale la socota farxad bay noo tahay runtii maanta halkan kol haddii ay Boorama tahay hoyga aqoonta hoolkii ugu weynaa ee jaamacadda eelo ay halkan ka dhisto inaan maanta joogno iyadoo bilow ah runtii halkan waxa ka muuqda hool qurux badan oo capacity-giisa uu ka turjumay professorku farxad bay anaga runtii noo tahay waa horumar soo kordhay degmada waa waxyaabahan ku faa'iideynay kamid tahay runtii oo aqoontu waxa weeye waa furihii halkan loogu soo hagaagayay gaar ahaan marka Soomaaliland laga hadlayo wasiirada iyo wafdiga madaxweyne ku-xigeenku hogaaminayo kullay maanta iyagu soo beegay maalin cimiladu aad u wanaagsan tahay rooban tahay waqtigii beeraha lagu hawlanaa wasiirkii beeruhuna joogo kullay waxaan uun isleeyahay wixii tala iyo hadalaa insha Allah laakiin waxaan soo dhaweynaynaa waana loo keenay sabalayga ay noo keentay SDF waa sabalay aad arkayso oo tayadiisu wanaagsan tahay soo filan yani ها 300 متر كيوب ساعدي وهجينا الى 6 كيلو متر كيوب halka maanta magaadu ay 4 كيلو متر كيوب ay ka hayso waliba ay hoos u sii socdaan calaasha bari marka yani نجح ما ku dhowna bursa saaraya bursan horta u faraxsanahay maadaama ma uu noo soo booqday madaxweynihii shaaba sameynteeda ilaahay intii ka sokaysa aasaase salka u dhigay oo maantana madaxweyne ku xigeen jamhuuriyadda Soomaaliland horta aad iyo aad baan ugu faraxsanahay mudane madaxweyne haddii aan nahay shaaba aniga oo ku hadlaya magaca maareeyaha shaaba xaruntan aan joogno annagu shaaba maamulkeeda معاونة الدولة ونما سجنو هايدا ونما سجنو أنت واحد بربر صعدة هايدي با بربر صعد هذه بانقوم هذا علينا إنه وسارد بيها إيوه
SDF mashruuca horumarinta Somaliland deeqda ayna siisay aad iyo aad baan uga mahad celinaynaa wixii noo dhiman insha Allah ta'ala wadanka ayaan la qabnaa inta iyada waan ka dooni doonaa insha Allah ta'ala haddii aan nahay shaaba ma aanan fadhiisanin sidii aan ugu diyaarin lahayn goobtan aan joogno oo shaaba diyaarisay hadday dhismo tahay hadday agabka badhkii tahay hadday hangarada tahay muddo 2 bilood aan ku diyaarinay inaan ku dhamaystirno markay alaabta dekeday kuma markaas hawl yar maaha waxa alaabta kamida saddexda matoor ee waaweyn ee dhinaca shishe waxay la socdaan mudane madaxweyne mashruuc ay ku jiraan saddexdan annaga iskale kan iyo kan shaaba ayaa iskale annaga maaragtaan dhawaan baa la sug alaabta halkan taali dhammaanteed 720 konteenar oo noocii dhaadheeraa ee ma garanaysaan 40kii ayaan meesha ku rognay ka shaaba ma ahina 26 ka kalaba waa mashruuc SDF weeye sidaa darteed insha Allah ta'ala annagu ma fadhino imika annagu kuma noogoyn laakiin shir baan ku jiray sidii muddada xaggan biyuhu ka socdaan ama sanad bay qaadan ama labay qaadani haddii shaqadeedu maanta bilaabanto ma hawli yara buuraa la jafayaa taangiya la dhisayaa dhul baa la jeexayaa waa 18 kilomitir yacni muddo sanad u yaraan bay qaadanaysaa marka bismillaahir rahmaanir rahiim la yidhaa shaqada la bilaabo sidaa darteed waxaan go'aansanay inaan 2 ceel oo dhinacan camuuda oo daboolan aan magaalada ku soo xidhno waxaan diyaarinay contribution waxa la wixii karaanka yaha waan qorsheynay waxaan ka codsanaynaa wasaaradda UNICEF inay qaybtii kale nagala qayb qaataan mashruucaasi haddii aanan soo diyaarin ama wax soo gaarsiinin magaalada maarij inta ka horeyso waqtiga kaliisha yani waxoogaa gaab ah soo galay marka waxaan ku rajo weynahay inaan intaana aan soo dhamayno insha Allah ta'ala UNICEF-na waan ka codsanay oo awalba markaan yar liicnaba yar badbaadin jirtayna taana aad baan inay doorkan nagu badbaadiso oo codsiga aan weydiisanay ay naga aqbasho ayaan aad iyo aad ugu rajo weynahay salaamu calaykum marka labaad runtii waan ugu mahadnaqayaa shirkadda shaaba adeegii loo doortay runtii 15 sano ka hor in ilaa maanta sidii loo baahnaa u wado way ka adag tahay runtii waan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa runtiina waan qirayaa dadku si khalad bay ka fahamsan yihiin heshiiska horta shirkadda iyo xukuumaddu ay gashay waxay ahayd waxa la yiraahdaa private management inay shirkaddu maamusho biyaha maamulkaas waxa weeye inay ka adkaato inay dayactirto qalabka shaqaynayay kolkuu dhammaad dib u soo iibiso shaqaalaha iyo adeega iyo maintenance-ka ahayd laakiin wixii maalgelin iyo fidina xukuumadda mar walba ka mas'uula laakiin tiina waxaad moodaa markay iyagoo dawladda itaalkeeda og iyadoo ogtahay hay'aduhu dib u dhac badan ku yimaadaan mar walba waxay ku dadaalaan shaqo ay lahayn ama maalgelin ay lahayn ayay ku dadaalaan waxay u dadaalaan inay markaa kolkay xaaladdu ku adkaato ama hay'adii dib u dhacdo ama dhaqaalihii dawladda soo gaari kari waayo in iyagu lacagtoodii dib u geliyaan runtii aad iyo aad baan runtii ugu mahadnaqaynaa waxaa laga yaabaa in sanadii u horreysay biyuhu ay wanaagsanaayeen shirkaddu inay markaa wixii berigii loo qariray inay heli jirtay laakiinse maanta wixii wax u dhow midna ma hesho sababta wax u heli weyday saa uu sheegay meesha haddii 300 kun loo baahdo oo 150 la helo 150 dib ugu daraan shirkad ahaan si ay maadaama meesha ay fadhiyaan oo adeeg laga sugayo nin dukaankii fadhiya oo biyihii laga sugayo oran kari maayo lacagtii dawladda hawsha beebkaalka la geynayo iyo ceelkaalka laga qodayo xukuumadda ka sugay hadduu yiraahdo suuragal ma noqonayso mas'uuliyad baad yaa saaray shirkadda runtii shirkadda aad bay mas'uuliyadda uga baxday reeboon wax looga baahan yahay in la shaqeeyaan aad ugu mahadnaqaan maamulku runtii aad buu la shaqeeyaa wasaaradda biyaha kolba cid joogta dawladda hoose aad buu la shaqeeyaa sababtoo waxay arkeen in waajibkii xukuumadda ka saarnaa runtii adeegyada waa waajib xukuumadeed marka haddii la private gareeyo ama laga dhigo qayb ka mid ah inay maamulaan waxaan ku faraxsanahay in adeegii aan u baahnayn dawladdu kale waajib ku hay inay qabtaan shirkadda shaaba oo runtii si fiican u fuliyaan maanta Somaliland ma hayne geeska Afrika oo dhan waxaan qabaa ama dalal badan la ictiraafsan yahay inay ka maamul wanaagsan yihiin nidaamkooda xisaabaad iyo daahfurnaantooda meel walba laga faano hay'adiina maalgeliyay UNICEF-ta iyo USAID markii hore maalgelisay
ay ku faanaan shirkadda shaaba waxaan ugu faanayay wixii ay dhiseen oo sidiisii u socda iyo systemkii oo system sustainable waxay gaalada sustainable macnaheedu iswada macnaheedu oo waa ku mishiinada inta leeg wada ogtiin wakaalada Soomaaliland maanta jirta oo mishiino iyo bama soo iibsatay inay jirin maanta intuu shaqeynay sanad waa la shaqeeyaa maanta badhada xumaatana xagga dawladda la soo carray hay'adaha laakiin waxay ku guuleysanayeen in mar walba shaygii dhamaanay lacagtiisa inuu dhigaan markuu soo taagan marka dama in tusayaan in mishiinada ka yaalaan oo kii hore markuu dhamaado kii cusub u dul yaalo bamkii haduu baxo banka dul yaalo waana nidaamkan u baahannahay in wakaaladeenoo ay qaataan hadduu xitaa imika wakaaladii hayna waa inuu ku fikiraa inuu waxaan uu iibinayo iyo systemka inuu iswado oo mishiinkan u dhamaanayaa haddii wixii soo baxba la cuno uun mishiinkan bari soo taagaya berina waxaan noqonay markaa dee ama xukuumaddii loo yimaado ama hay'ada lagu qaylo inta la sugayaba dee maaragtay dhicisku inta loo sugo iyo ka dhintaa waxa markasta karays keeno biyalaanta magaalada ku keenayahay dee waxaana loogu talagelin mooyaan markaa inta taasaa markaa dib u dhacda marka aad iyo aad baan runtii adeeggaa ay wanaagsan hayaan waan ugu mahadnaqaynaa waana adeeggii xukuumaddu ay lahayd qaybtii loo dhiibay inay waajibkeeda ka baxeen runtii hawl yarna umaanaan gelin markii magaaladii Boorama biyaheedii la moodayay inay biyo leedahay markay biyihii noqdeen biyo sare oo dhammaaday qaybtii muug iyo dadka way wada garanaya maanta ilaa madaxweynuhu dee uu garanaya madaxweynaha Soomaaliland ninkii waxaa ka dhiganay camuud wuxuu garanaya biyaha dhamuugada banaanka yaala orday garanaya iminkana waxay gaadhay in ceelashii la qoday 60 mitir ay goreen oo biyo jirin tii waxay keentay in la ordo oo xukuumadana aad dadaalno oo dibadda mashruuc aan ku darnay 2 milyan in ka badan in lagu maalgeliyo ayaan ku soo dadaalnay koladaan soo dadaalnay waxaan ognahay inay xafido doonaan waxa aan keenay hantidaas in xafido doonaan ay si fiican u maamulo doonaan jaamacadda yeedheen gobolka horumarka ka socda in maanta uu halkan furo xafiiskaygii cusbaa aniga oo muddo 2 week aan ka badnayn xilka haya oo la qalin jabiyay jaamacadda eelo macnaheedu inta iyagu waxbarasho ku maqnaayna course kale ku maqnaayo insha Allah oo inta sifa waliba ilaahay horta ay ugu asturo xilka aniga iyo inta ila haysaba ee gacmahayga ah ee xogayuhu ugu horeeyo agaasimo waaxidadii oo halkan maanta fadhiya mudane madaxweyne waxa ku soo dhaweynaa xafiiska cusbaa ee meeyarka degmada oo ah dhismihii markii ugu dambeeyay farta ka qaadnay ee meeyarkii iga dambeeyana waxa xariga ka jaray laakiin dhismihiisu xilliga aanu qabanay waa dhismeyaashan ugu talagalay maamulku inuu ku kala fuudaado shaqadu sida isku leedahay inaan isku waafajino oo wixii file iyo system iyo lacag qaabilsan iyo cashuur inaan dhinac isku wada marno aan la kala fogaan boon la oran mee geometrikii mee kii lacagta qabanayay mee kii ardaydu oo halkaa hal line oo isku wada muuqda shaqadiisa ay u fudaato oo adeegii dadkan bulshadan siineynay inuu u fududaado oo dawlad hoose laga caban waayo wixii ku soo kordhay waa inaad bulshada wax ugu qabato waa khibradda aan doonayna inaan maamulka ku hagaajino haddii Ilaahay dhaahdo ilaahayna waxa ka rajaynaynaa inuu Ilaahay nagu asturaano gacmaysasana golaha laftigiisu maanta waxba u kordhay muddada aan joognay waa la isbartay waayo aragnimo badan wax badan oo naga khaldanaa oo aanu markii hore isku xaydeynay uuna iska laadinaynay waxaanu ogaanay maanta inaanay shaqadayadii iyo mas'uuliyaddeeda ahayn mas'uuliyaddeedu ay tahay dadkiina soo doortay iyo degmadiina naga soo doortay inaan wax u qabano shaqadu waa inta ugu muhiimsan golihiina maanta waxaan ku faraxsanahay in waaxihiisu iyo dhamaanba ay og yihiin shaqada maanta mas'uuliyadda ka saaray inay yihiin policy maker fulinta uun ku daba gala wixii ay go'aamiyaan taana waan isla qaadanay
waxaas la garanay agaasimo waaxeed kasta shaqadiisa inuu si toos uga soo baxo xildhibaanada aan ku faragelin karin cidda shaqadeeda leeyahay ay tahay fulinta oo ugu horeeya xoghayaha dawladda hoose shaqada haddii nin walba intiisa loo daayo wax alla wax xumaanaya ma jiro dakhligii inaan dardar gelino ila badan oo aan dakhli naga soo gali jirin inaan dakhli ka abuurno caqabadaha ugu waaweyn ee haysan jireen waxa kamid ah maanta khibradeeda aan leeyahay oo banaanka ka joogay aan gudaha ku jiraba waxa jira faylal aan sharciba loo sameeysanin oo 4 jeer la kala iibsaday oo dad leeyihiin oo kala wareejin lahayn oo dhaxal galay oo dadkii dhaxalka ay lahaa markay qayb kamid dibadaha ka yimaadaan ay isqabsadaan kadibna hal la baaro la yiraahdo oo qofkii gurigan xaq u lahaa nootaaya ku hays baxda eeg nootaaya ku haysta halka ay ka ahayd inuu sharciga nidaamkiisa dhamaystirto waxa ku imanaya nin sharcigii guriga oo dhamaystiran wada kii xaq u lahaana wuxuu wataa nootaayo oo kaliya keed xukumaysa marka waxaan isku haysanaa maanta oo garteedu ugu dambeeyay ku jirnay guri de xilli aanan dhalanba jago la isku la kala iibsaday oo 45 sano ka hor la kala iibsaday oo wali uuna hadana nootaaya oo hal cashuur laga bixin dadka noocaas loo baarayo waxaan inay inagana dakhli nooga soo galo inaana fayl balabaan waxa uu faylkii baa naga lumay hala noo baaro waayo imsa sano ka maqnaa inta 15 sano 15 ka sano horta cashuurteedu bixi inaan fayl ba loo baarin ilaa cashuurta la bixiyo shirkadaha isgaarsiinta iyo kuwa leerka sida sharciga iyo dastuurka Soomaaliland ba ku yaalay xeerka maamulka gobolada degmooyinka xeer lambar 23 wuxuu cadeynayaa in god kasta oo la qodayo oo biito lagu taago ama birahada ama qori ahaadee la taago oo dhulka degmadu maamulaysa inay cashuur ku waajibtay in percentage lagu leeyahay shirkadaha welina aanan ka qadin laakiin imika miisaaniyada hadda waanu ku darsanay heerarka wixii dib ugu baaqdayna negotiation maanu ka galaynaa wixii hadda ka bilaabmayana mid looma dhaafayo waxaan doonaynaa bulshadu inay nala xisaabtanto annaguna aan la xisaabtanno waxa lagu hormarinay waa cashuur haddii aan la bixin waxa weeyaan wax alla wax soconaya ma jiro haddana horumar baa la doonaya waxaad arkaysaa jidad dhan oo la dhisay dad dhan oo mas'uuliina ayaa ku doodaya ku oranaya bal maanta aniga igu dhaaf hadda waad garsooma waxaas waxa weeyaan dadkii qofkii mas'uulkaana waa la kadeedaya qofkii isagoo khalad ku jira ayuu mas'uulna soo kadeedaya mas'uulkii marka dambe markuu arko wixii inay khaldan tahay waxa noqonaysaa inuu ama telefoonka ka xidho ama maad garanaysaa de ka leexlaada xooga cabaar taasina waxa weeyaan caqabadaha jira dadka mas'uuliyiintaana yaan la kadeedin war qofka khalad ku jira khaladka ka baxo qofka loo danaynayo ee maanta la doonayo hadii ilaahay naguma keenay maanta bacadlihiin dhan walba ku xinaya hadii la yiraahdo dildimiska ka galo meel dab qabsado meel la marama jiro inuu dad si marada wax khasaare kala geysto waa meesha dhibaato ka dhacdo guriga sii jeedo dad ku jiraan oo meesha maad garad marka waxa weeyaan taxadirkeeda si loo yeesho waxaan ugu tala galnay inaan wadooyinka furno guriga hooyaday hadii ku hagaagto inaan dul marno cadaaladda umma dadka deeqda ta aan doonayno maanta inaan hor ilaahay halka madaxweyne ku xigeen ka ballan qaadna waxa weey inaan dadka cadaalad ugu shaqeyno cid ka hor timaadana inaad meel nagula soo jeesataan hadii ilaahay dhado waxa ugu horeeya waa dariiqyada aan furayno waa koow dhagxaanta iyo ciidda horta la guriyaha oon gurayno guriga ama jagaha wadada ama jagaha ku soo hagaagto dad leeyihiin ama dawladda hal ahaato waxa wallaahi aan ku ballan qaadnay inaanu cagafta dul marino ciidanka biliiskana ugu mahadnaqayna sida ay maanta noogu heelayihiin ay yiraahdaan hadii aad maanta wax qabad u dhaqaaqdeen annaga kow naga dhaha askariga ugu horeeya ee isku dhigaya waa saraakiisha iyo ciidankooda inkastoo gobolka ciidanka biliisku oo ku yar yahay runtii oo aad ugu kooban yahay taana waxaan oran lahaa insha Allah arinta hala noo soo kordhiyo si ay waayo hawshi degmadii way korodhay afar waaxood ma doonayna inaan u qaybino afar xarumo degmo dawlad hoose ahaan iyaan doonayna afarta degmo inaan ka furno oo shaqadooda fushada oo gudoomiyayaal oo shaqadoodii leh iyo cid coordinate garaysa oo maamulka aan doonayna inaan decentralization sameeyno oo maamulka dhaadhicino si annagana culays ka badan nooga dhaadhaco oo hawlo kale u haleelna hadii Ilaahay yiraahdo waqti kulli waa waqtiga kooban aad iyo aad baa kugu soo dhaweynaa kugu mahadnaqaynaa gobolkan waxaan u dhiibayaa wax badan ku darmaayo waqti baan taaganahay waxse kulli maayirku course buu ka soo baxo isaga waxaan sugaynaa course-ka inuu nooga faa'iideeyo qalin jabinta maanta laba qalin jabood baa isku baagmay marka isaga waxaan u fadhinaa inuu wixii soo bartay 3 sanadood
waayo aragnimada inooga faa'iideeyo ta kale madaxweyne gobolkan adiga kuu sheegi maayo laakiin dadka waxaan u sheegayaa ama adiga laftaada waan leeyahay nagu garab gala warbixin waxaa ka bixin kara shaqaalaha iga hooseeya aniga nin la dooranaya waa gaar maayar la dooranaya iyo xildhibaan waa gaar laakiin shaqaalaha aniga iga hooseeya hadduu yahay taliyayaasha booliiska hadduu yahay xogeyaasha gobolka iyo degmada aniga ka warbixin kara haddii lagu eriyayo iyo haddii lagu daynayo iyo haddii bilad lagu siinayo waxaan idinka maganahay inaan lay dhaafin oo mid odayaal wadaan iyo mid kale toonna aan lay aqbalin hadda waxaan ogahay qaar wasaaradda arrimaha gudaha la geeyey raalli kamaanay wixii waxaa sameeyeen waxaan doonaya weliba tallaabo inaan ka qaada qof aan warbixin ka bixiyaa mooyaane qof kale kama shaqayn karo lagumana bedeli karo madaxweyne wasaaraddeedan waan ogeysiiyey waana u sheegay waana kala hadlay adiga oo maanta joogana waxaan doonayaa inaad nagula garab gashaan inaan lay dhaafin shaqa gudoomiyaha gobolka iyo maayarka degmada runtii waxaynu rabnaa keliya inagu in qarankan iyo dadkani loo shaqeeyo sidaan maantaba hadalkay ku sheegay gudoomiyaha waxaan ku ballanay saa uu sheegay mar hadduu waaya arkay shaqada uu wanaajiya waxay degmada keliya waxuma taraysa isagay siyaasaddiisa iyo mustaqbalkiisa dhisaa qof walba ay naga mid yihiin ninku hadduu shaarkiisa nadiifsado dee isaga qurux badnaanaya hadduu qofku shaarkiisa nadiifsan waayana dee isagaa shaar foor xuno isaga sita qofka binaadamka waxa ninka soo naga mid mas-uul waxa looga baahan yahay inuu shaarkiisa nadiifsado haddaan qaybta amniga tihiin haddaad tihiin qaybta maamulka waxa qofku shaarkiisa nadiifsado markuu shaarkiisa nadiifsadana xagga adduunyada xagga aakhiraba wuxuu helayaa ajar buu helayaa gola degaanada waxaa la yidhaahdaa kolba waxaa la yidhi waa iska aakhiri samanko gabaya nin ciraaqi tiriya wuxuu yidhi shalayna waa loo ooyaa berrina waa laga ooyaa waxaad moodaa ko laba qole ka dambayso maal hore kuwii horaa roonaan baa la odhanayaa weli degaankow far bay idinku goda meeda joogtaan be ama boorama jooga ama burca jooga ama ceergaabo joogo war far bay idinku godana shaqada garta oo horta waxaad tihiin waa kow siyaasad dejiyaal baa tihiin ma tihidina dad nin walba ka raaniyo hawl wada fulinayo ma tihidina dadkii siyaasadda degmada dejin lahaa wanaageeda dib u dhiskeeda hagaajinteeda qurxinteeda tihiin laakiinse laguma dooran inaad maalin walba xafiiskaaga dadka dul joogto laguma dooran inaad ninkii inaad yarkaa feelka cashuur laga qaadi lahaa feelkii cashuur laga qaadine way doorteesi ummadda dhan oo dhaba ku dooratay nin gaari kuma dooran waa daadaro ummaddu waxay u siman tahay cashuurta laga qaadana waa u siman tahay xaq siman bay leedahay in aqalka madaxweynaha aanu maanta awdal ana maanta ugu sarreeya madaxweynaha qarankaan ahay aqalkayga cashuurtiisa waa la qaban bixiya anugu haddii kase inagii maanta dalka qarankan magac ku qaadnay ee nin xil ku helnay kolkula taliyaha qaybta ama sanyar idhaahdo waxaan ahay taliyihii jeelka iyo waxba la weydiinin aniga kana idhahdo anu xildhibaan baan akhiyaa la weydiinin oo adaaba dalkii jaaniskiisa helo cashuurtii cunaye maskiinka dayaa la qasbi oo albaabka laga saari mana shaqaynaysa cashuurta waa in la bixiyaa nin kastoo mas-uula sida ka miskiinka looga qaaday isagana albaabka waa inaad ka furtaa ninka kale mas-uulkaana sababtoo waa cashuurta waa consumerka kii cashuurta cunay markuu dhahdeen sheekh hebel baan hayo xildhibaan hebel baan hayo war somaliland sa qaran ku noqon mayso haddayna cashuurta bixin tu qaran iyo tu dowlad hoose midna lagu dhisi maayo idinka waxa laga baahan yahay sida aad ballan qaaday aad ku hadlaysa inaad kaga dhabayso ood ummadda waxaad fulinaysaa aad u dhaxayso wixii khayraad soo kordha aad u dhaxayso cashuurta aad qaado dakhliga kordhiso kow markaad dakhli kordhiso aad wax qaban kartaa ood magaalo qurxin kartaa shaqaalaha qurxin kartaa taasi waxay keenaysaa markaa inaad dakhligaaga aad xoojiso waa kow wax meel kasta wax kaaga maqan ka doon kolkaad ka hesho meel kasta wixii kaaga maqan dabeedna dadka waa inay arkaan lacagtii soo gashay halkay gashay dee ood ummadda u muujisaa adduunyada innagu waxaan noqonay mahmahayna iyo bar iska kharibanoo nin hilaab xun inuu qasay waa wada hilaab xun gebiyo nina Soomaaliland ama ummadda ma rabtay inay xisaab aan dhigto meel wadanka intaa leeg kama amaanayo shirkadda ka mid tahay shirkadda maanta Soomaaliland la oranayo hadii la maanta xisaabtaada keen shaaba jirto wadanka walaa institution jaamacad la yiraahdo walaa dawlad hoose walaa cid maanta nidaam dhisan oo ma kala weydiiyo xisaabteeda khalad iyo sax khasaariye faa'iido halka dhig kartay income statement-keeda
shirkadda shaaba laa jirta shirkadda shaaba waa la maanta waxaad ka mid tihiin magaalada ay ku nooshaad ku nooshiin saambal baad ka dhigan kartaan shaqada hayso aad haysaan tukaway baa haysaa haddana wax shaqada isqaqabsanaya ma jiro smuus buu socotaa maxay u socotaa nin walba hawshiisa loo daayay ka soo qiimeynaya ka gelinaya ka lacagta soo qoraya ka maamulaya shaqadii baa la dhaadhiciyo nin walba hawshiisa qabtaa dawladaha hoose hadduu ninka meeyarka iyo meeyar ku-xigeenka iyo xogayuhu iyo inta shaqada leh hadday nin walba shaqadiisa fushado u dhaadhiciyo oona qofka nin walba meeyarka u fayl loo imanin oo xeerku dadka isku mid yahay markuu xogayuhu yimaado yidhaahdo 5 sano lagu leeyahay cashuurta bixi oo malaaskan uu ku dheereeyay meeyarka yor tago ama xildhibaan hebel ka hayso dabadna intuu meeyarkii loo dhaaf meeyarku dhaade oo ku yar garto war sanad ka qaad shaqayn ma saddex shaqada saar sheegtay waa in qof walba halkiis loo daayaa oo ummadda ay u sinaataa shaqada oo ummadda cashuur bixinta u sinaataa anigu waan joogay meeshan boqolka aqal ee booro markaan nimidnay waxa laga qaajay 35 boqolka aqal 35 waan is xoraafna waan dadaalno konton iyo 5 dhaafin weyn maxaa hadhay wali aqaladii 45 boqolkiiba inta hadhawaynta waxa loogu dhisay dadka de waa inta gartaan reer boorama boqolkiiba 45 aqal la gaadhin waa intii de wax loogu dhisay horumarka lagu qaban lahaa sababtoo inta la qabtay waa intii noqotay kharashkii daily ahaa kharani kastigi mushaharkii iyo shidaalkii iyo isbeer baarkii hadaa si cashuurta boqolkiiba boqol bixisaan hadda waxa qofku bixinaya waa sanadka dhan aqal hoosexdo iyo wax ka bixinaya boqol kun Soomaalida 50 150 kun 200 wax culus maaha laakiin sababta lacagtaas isku tagtay loo bixiyo lacag weyn bay noqonaysaa oo ummadda degmada iyo dadkii wax ka tarta marka iyagana wax ku dardaarayeen iyaguna cashuurta dad ku ceshaan ummadda reer boorama ama reer Soomaaliyeed ba cashuur wax lahayn waa in cashuurta bixiyaan sida wax loogu qabto wixii ka dhiman loogu qabto annaguna la xisaabtan hadeed dawladda hoose waa xukuumadda cusub ee Muuse Biixi hogaaminayo waa la xisaabtamaya hadii wal xisaabtan laan hore jirtay waa la xisaabtamaya ninkii loo dhiibay ee ummaddu hayal ku mariyay